السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواada youtube channelkeena asxaabteena haddaan nagu cusubtiin subscribe noo saara intii hore noola joogtiin waxaan ka codsanaynaa like share comment si aad idinla wadaagaan asxaabtiina kaleeto ama ehliyadiina. maanta waxaan wadanaa qumba caano maasha allah ciidii baan usii dabaaldegaynaa waxa uu ka kooban yahay baan hadeer isku dardarsanaynaa insha allah 4 koob oo caano cabiranayaa koobkaas koobka haysatid aniga hadda koobkaas ayaan ku cabiranayaa koobkaas guri kasta waa laga helayaa insha allah saan aaminsanahay koobka 4 kiis oo caano ah almuhim caanaha waa inay dheeyihiin koob caano hadda digsiga ku shubtay waxaan ku soo darsanayaa 6 koob oo sonkor ah waana isla koobkii cabirkiisii 6diis ayaan ku shubanayaa qiyaastana koobkaas kaliya ma aha inaad fiirsato muhiimadda weelka adiga markaa haysato ayaad ku cabiranaysaa markaad bakeeri ahaan 4 ooga cabirato caanaha ayaad uga cabiranaysaa haddana sokorta hadda waxaan ku darsaday 2 qaado oo caanaha powderka ah ay caana haysata oo caano booro ah ayaa ku darsanaysaa iga raali ahaad waa hirgibsanahay marka ayaantan waa kala maqnay waa soo kala raagnay marka waan insha allah waan diyaarsanay aniga u baahday waxaan jeclaystay inaan la wadaagtaan isugu keen soo bislaaday maasha allah dar qumbihi aan ku darayaa 6 koob oo isla koobkii ah oo qumba ahaan ku darayaa haddana qumbihi qalalnaa waaye 6 koob baan ku miisayaa cabirka hadduu ku hagaagsan yahay wax walba ku hagaagayaan maasha allah baba qumbaha ku soo daray waa kaasa qumbaha aan isticmaalayana waa idin tusaya waa qumbaha qallalan oo dukaamada laga helaa hadda bacda waa ka furay bacuu ku xiran yahay marka hadeer uu isugu keen soo bislaanaya maasha allah hordhowna waxaan ku daraynaa haddii ilaahay yiraahdo kalar yar oo hadduu soo cadyahay ma qurux badno kalar yar ku darayaa iyo 3 qaado oo bur ah burkeena caadiga ah iyo qaado tan yar ee kafeega ah oo saafraan ah ayaan soo daray baan isugu soo qasay marka burkaas iyo saafraanka waxaan kaga dhigayaa xogaa baan ku adkeynaynaa isku soo ururinayaa hadda waxaan ku daraa qaado heel ah maasha allah daruusi soo ururiyo waxaas uu dhow yahay marka burkaas yar hadda idin sheegayo kalarka lahaan ku adkeynayaa 3 qaado bur ah way qaadada cuntada lagu cuno 3 maadaama qumbaha uu badan yahay aan samaynayo haddii qumbaha aad samaysanayso uu yar yahay burka waa ka yareynaysaa 1 qaado nus qaado marka qumbaha samaynayso cadadkiisa intuu leeyahay ayaad ku qiyaasanaysaa marka waa kaas kalarkiisu isu soo bedelay maasha allah waan ku soo dhamaystiray waan inoo soo gagaabinay fiidiyowga aad buu dheeraanay haddii kaleeto maasha allah waxaas noogu soo baxaya cabaar kadibna waa uu soo diyaar garoobayaa waan ka dejinaynaa laakiin hadeer waxaan ku darayaa subag yar 2 qaado subagaan ku darayaa insha allah aan dumar aan ku soo walaaqay insha allah wax badan ma qaadan karo
cuntada sida xalwad iyo maaha dufan badan ma qaadan karo. intaas waxaa loogu darayaa inuu digsiga kaga soo fuuqo kaliya. inoo dhow yahay mar dhow wuu ka degaya insha allah. markaasaa qaadada labaad, haddii aada subakaysan saliid cadday waa ku darsan kartaa ama ayu subag nooc kastoo aa haysatid aa ku darsanaysaa. muhiimadda waxaa waaye inuu digsiga kaaga soo fuuqo kaliya, wax yaroo dufan aa hesho. haduu isa soo kunkuumiyey maasha allah wuu soo bislaaday. waa ka dejinaynaa mar dhow insha allah. haddaad fiidiyogeena ka hesheen liketa, sheerta, commentiga dhiirigelin bay noo tahay walaalayaal. asxaabteena qaaliga ah, haddaan ugu cusubtiin subscribe-ka nagala bakhaylina insha allah. waa codsi aan mar walba idiin soo gudbisanayno. markaan waa diyaar insha allah. mar dhow waa ka dejinayaa. bisha ramadaan baa laga sii tabaabashaysanaya insha allah. ciidka gurigaaga ku samayso tartiib. waa kasoo dejiyey weelka meesha aa ku shubayso. hadda ani qori buran ku shubay, meesha aa ku shubayso dufan mari. maasha allah waa kaasaa saasuu marka noogu soo baxay. waa kusoo fidinaynaa waana soo jarjarayaa insha allah. sida aad jeceshaa u jarjaranaysaa, 4 gees 3 gees harka u jaranaysaa. waa kaa saxankan saa kusoo saarsaaraya, kusoo dhammaystirayaa insha allah. waa filaya inaad ka hesheen. maanta waxaan idiin soo bandhignay. like-ta, sheerta, commentiga hanaga bakhaylina insha allah. haddaan ugu cusubtiin subscribe-ka. waana idin salaameynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. جوهرنا هنا في القلب تلالا.